السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بقى دawadayaasha qaaliga ah meel walba joogtaan daafaha dunida caalamka aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ayaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaadba soo dhawaada daawadayaal inoo sheegareeya barnaamij aad iyo aad u xiiso badan ayaynu kusoo qaadan doonaa maanta waxaan idin leeyahay jimco mubaarak jimco wanaagsan maalin wanaagsan subax wanaagsan ku damaashaada farxad iyo reyn dhammaantiinba waa anigoo ah walaalkiin xasan ismaaciil hargeysaawi oo idinku salaamaya mar labaad salaamta islaamka soo dhawaada barnaamij aad iyo aad u xiiso badan baan idoo hayaa maanta haye yaanuuse ku dhaafin fadlan inoo sheegare barnaamijka iska furan doonaa dhammaantiinba waa idin salaamaya waanan idin jecelahay dhammaantiinba hees baynu ku bilaabanaa barnaamijka
aad baad mahadsantihiin dhammaantiinba daawadayaasheeda qaaliga ah meel walbood joogtaan daafaha dunida caalamka aad baa idin salaamaya kulligiinba waa walaalkiin xasan ismaaciil hargeysaawi oo idinku salaamaya mar labaad salaanta islaamka soo dhawaada walaalayaal haddii lay maqlo halkaa ha laygu soo qoro barnaamij aad iyo aad u xiisa badan baan idin haya maanta yaanu ku dhaafin waa war xasaasiya ha laygu soo qoro halkaa haddii lay maqlo si fiican haddii lay maqlo ha lay soo qoro فارح هابويري إنا حسين هابويري نمع نورا dhammaantiin bood mahadsantihiin barnaamij aad iyo aad u xiiso badan baynu ka hadli doonaa maanta waxa aynu ku falanqeyn doonaa siyaasadda Soomaaliya marxaladan ay maanta marayso iyo halka ay marayso dhammaantiinba inoo sheergareeya aad baan idin salaamaya kulligiinba sida aynu la socono siyaasadda Soomaaliya waxay maraysaa marxalad aad iyo aad u xun waxaana soo cusboonaaday khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre khilaafkaas oo hadda run ahaantii aad u sii kobcaya sidii hore waa ka soo daraya bartii uu ka bilaabmay khilaafku waa mid adigu soo qotay dheereeyay baryahanba miidiyuhu aanay warhaynin ama miidiyaha hadda maanta dowladda ayaa haysata oo miidiyaha iyaga ayaa kharash gareeya oo miidiyaha afka ayaa la hayaa gacanta ayaa la hayaa marka khilaafkii hadda banaanka u soo baxay weynaaday banaanka u soo baxay maanta waxaana uu ka bilaabmay bartii uu ka bilaabmay iyo taariikhdiisii ayaynu soo raaci doonaa insha allahu tacaala dhammaantiin bay inoo sheergaraya aad baad mahadsantihiin madaxweyne Farmaajo hadda xilka wuxuu hayaa hal sano halkii sano maxaa u qabsoomay aynu oran karnaa se maxaa u qabtay madaxweyne Farmaajo maalinkii uu xilka qabanayay maxaa uu ka yiri musuqmaasuqa intii aan uu xilka qabanin baan ka wadaa uu ku jiro ololaha wuxuu ka hadlay arrin musuqmaasuqa iyo wuxuu ka qaban doono waddanka wal aynu wada daawano dhammaantiinba isagoo oo ka hadlaya musuqmaasuqa inuu la dagaalami doono una Soomaaliya uu ka tirtiri doono insha Allah waxa ugu horeeya haddaan nolol rabno musuqmaasuq inaan la dagaalno musuqmaasuqu waa cadowga siyaasadda cadowga dowladeed weyn sida shabaabka cadowga shacabka u yihiin yaa musuqmaasuquna wuxuu yahay cadowga horumarka waxaa laba beri ka hor la soo saaray Transparency International soo saaray sanadkii 10aad inaan uga jirno waddanka ugu musuqmaasuqa badan adduunka 176 baan uga jirnaa waddanka ugu horeeyana waa Denmark maxaa noo diiday inaan Denmark la tartanno marka maxaan ugu jirnaa inaan noqono dadka ugu xun adduunka ilaa musuqmaasuqa macnaheedu waa tuug weyn diinteenu ma ogola dad islaanana maxaana gaarsiiyay in adduunku nala yaabo ay yiraahdaan dadkaan bini aadan ma aha walaalayaalow mudanayaal marwooyin haddaad i doorataan musuqmaasuqu waa targetkayga ugu horeeya weyn waa la dagaalameynaa si foorxunna waa ula dagaalameynaa qofkii hantida qaranka ku takrifala dad ummadana waa ku ceebeynaynaa xabsi dheerna u direynaa musuqmaasuqa waxa laga bedeli doono ama laga qaban doono run ahaantii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu la dagaalamayay musuqmaasuqa uuna meel saarayay ololihiisii waxa uu ka mid ahaa uu ku soo galay ololaha doorashooyinka se maxaa u qabsoomay musuqmaasuqi heerkee ayuu marayaa maanta waxaynu oran karaynaa musuqmaasuqu wuxuu marayaa heerkii ugu xumaa ama ugu darnaa waqti xaadirkan waxaynu oran karnaa dowladda laftirkeedii ayaa waxa ay adeegsanaysaa lacago iyo in ay dadka laaluus ay siiso dhammaan shacabka iyo warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa miidiyaha beejashka in la maalgeliyo lacagna la siiyo musuqmaasuqii waxa uu ka abuurmayba dowladda dhexdeedii okay waxa aynu saari doonaa diiradda
khilaafku barta uu ka abuurmay khilaafku wuxuu ka abuurmay sanadkii aynu soo dhaafnay waxa la calaamay saarayay dalka aynu dariska nahay ee Kenya Uhuru Kenyatta waxaa ku yimiday madaxweynayaal baa isku yimiday adduunyada ah carabta iyo madaxweynayaal baa ka soo qayb galay xafladda calaamay saarka waxaana kamid ahaa oo hogaaminayay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuu la kulmay madax badan oo Afrikaan ah uu kamid yahay madaxweyne Farmaajo wada hadal bay galeen qarsoodi ah wada hadalkii way isku afgaran waayeen waana ku kala tageen waxa kamid ahaa pointyadii ugu soo sareeyay ee uu madaxweyne ra'iisul wasaaraha Yahuudi uu watay in isdhexgal uu la sameeyo Soomaaliya inuu la sameeyo iskaashi Soomaaliya laakiin wadamada muslimiinta ah way ognahay heerka ay ka taaganahay xiriir inaan la yeelano Yahuuda taakasoko way isku fahmi waayeen waana kala tageen Netanyahu kama harin wuxuu soo diray guddi iyo wuxuu soo diray Soomaaliya imaadeen iyagoo ku socda magaca qaramada midoobay dad bixiyaal ah halkii bay waxa ay ka sii amba qaadeen wada hadaladii run ahaantii wada hadalladii qayb waa la isku afkartay run ahaantii deeto sirtii baa qarxay oo siyaasaddu waa la fahmaya oo wixii baa wada qarxay ra'iisul wasaarihii iyo isagii baa iskhilaafay Soomaaliya way ognahay oo madaxweyne Farmaajo wuxuu ka istaagay bariga dhexe ee carabta khilaafkoodii dhex buu ka noqday deeto khilaafkii wuxuu gaaray carabta imaaraadka iyo sacuudiga iyo in yani xiriir cusub lala yeelanayo dawladda Israa'iil ee Soomaaliya ku wado dabadeeto khayra wuxuu la saftay imaaraadka ay la soo saftay isaga iyo Umar Cabdirashiid Ali Sharmaake iyo isku koox bay noqdeen isku xuluf bay noqdeen dabadeeto way isku khilaafeen halka waxaana damacsan yahay safaarad in laga dhiso magaalada Muqdisho qunsuliyad hoose ayaa la abuuray isdhexgal baa la abuuray hadda in yani Yahuudi iyo safaarado cusub iyo in la tago Talaabiib kaasi ma waxa aqligal ah oo aqliga bilaadka galiya labadii calan baa la is agdhigay labadii calan ayaa la is agdhigay calankii Soomaaliya kii Yahuuda la is agdhigay kii Yahuuda iyo kii Soomaaliya la is agdhigay xiriir cusub baa la sameeyay xiriirkii baa soo shacbaxay waana isku khilaafeen ra'iisul wasaaraha iyo waana isku khilaafeen khilaafku halkaas uu ka abuurmay ilaahi baan ku dhaafshay aqli bilaadan been leenahay ma Yahuud baynu xiriir la sameyn kareena ma Yahuud bay oo aynu muslimiintii geed iska wada ooday oo carabtii ay geed iska wada ooday la deriska ahaayeen ayay inagu xiriir la sameyn kareena bal siyaasadnimada halka heerka ay meega gaadhay marka warrama heerka ay taagan tahay waqti xaadirka siyaasadda Soomaaliya okay khilaafku uu soo shaac bixi doona waa la ogaan doona waana ka hordhacay anigu hordhac baan uga hordhacay uu soo shaac bixi doona cid walba waana ka hadli doontaa wuxuu noqon doona waxa hadda miidiyaha qabsan doona ay haysta yani ugu may horeeyay ra'iisul wasaare iyo madaxweyne iskhilaafa Soomaaliya how many madaxweynayaal oo ayaa iskhilaafay iyo ra'iisul wasaarayaal in misaaqadka ka baxay insaana ka saaray yana awood sareeyay yana awooda lahaa waxay labadii baadilka ku heshiiyay xaqi ku ciloobaan baa la yiri taabid wuxuu ahaa nin yani shaqadiisa ka adag oo taf ah oo aqli badan oo maskax badan buu ahaa markii la arkay khayr in uu ninkani noqon doono ninka bedeli doona markuu arkay bixinta ka saaray laakiin ma soo noqon karaya taabid hadda oo xilkii ma qabsan karaya Farmaajo waxa cad oo qarka u saaran yahay inuu mooshin ka diyaariyo in mooshin u diro golaha baarlamaanka ayaa hadda uu qarka u saaran yahay dawladii iyadii dhexdeedii baa ishaysata ayaa ishaysata hadda oo ilka casay xubbu sheegay maalinku ka hadlay iyadoo bil jirta dawladii igu sawir inay igu sawir ahayd bil may jirin maalintii ilka casay sheegay heesta u qaaday بريانية يقول صور عمارة مية يقول صور عالم كمية
igu sawir wadani banahay kaalay iskaaray waryaaniya igu sawir camoonaniya igu sawir calanka igu sawir wadani banahay kaalay iskaaray odayi jiroolaha masanugulayda abriska ooman eyga ooya abisada jiifta galayka gaali isugu xirtana mugsiga aaso sixirka dugsada oo oronka quraaxa fidnaarta cuna oo dhiigga sayro ubadkeenna xinjirtooda cuna aafa socoto maskiin lamoodi ina bulaale ina igu sawir ardigaada badda qaaday hadda iscasil hadda nadhaaf intay goori tahay hadda nadhaaf inta nagu filan hadda nadhaaf waan ogaanay wadani matiid afkaad ka tahay waa igu wallaahi itoosi igu sawir yaahuu oryaaniya igu sawir camoolaniya igu sawir calanka miya igu sawir wadani banahay kaalay iskaaray oryaaniya igu sawir camoolaniya igu sawir calanka run ahaantii iga raali noqda waxaan u malaynayaa cilad farsamo xumo inay jirto oo guux ayaa dareemaysaan sida aan ka arkayo commentiga cilad farsamo ayaa jirta iga raali noqda dhammaantiinba waynu si guda geli doonaa muxuu noqon doonaa labadii baadilka ku heshiiya xaqi ku ciloobaa maanta xaqi ay ku ciloobeen madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii keebaa qaldan keebaana saxa yaa qaldan iyaynu qaladka saarnaa soomaaliya inaynu kala saarna inagu weeyaane madaxweynaha aynu kolba dhinac aynu kala taageerna iyaynu taageerno qaldan yaad odhan karaysaa uu qaldan yahay maanta dee ninka yuhuudka raadinaya qaldan baa isleeyaani aniga ahaan ninka xidhiir la sameeyey israa'iil waxaa kuu labadii calan isku keenay calankii soomaaliyeed ee sharafta badnaa ee qiimaha lahaa bal kii yuhuudda ayuu isku keenay kii yuhuuddu isku keenay kii calankii soomaaliyeed ee quruxda iyo haybadda lahaa abwaanti macadde kii uu ka gabiyey ee yidhi sarreeyo ma nusqaan ba baan siduu yahay eege kana sii kana saar yuhuuddu maanta ag yaalla calan yuhuudeed buu ag yaallaa calan yuhuudeed buu ag yaallaa maanta calan yuhuudeed buu ag yaallaa sarreeyo ma nusqaan ba kana sii kana saar rag baa u heesay rag baa u gabiyey iga raali noqda khad waxaa jira cilad baa jirta farsamo xumo maxaynu odhan karaynaa dawladdii faalkii baa ayaa la qarxiyey faalkii dawladdii ayaa la qarxiyey waxaa la qarxiyey faalkii baa la furfuray faalkii ay la faalanayey madaxweyne baarlamanka dacwa kaa taalla 100 xildhibaano ka badan baa waxay ka hor yimaadeen dowladdaad soo dhistay iyo wasiiradeeda 68 wasiir dal gaajaysan dadkiisu gaajaysan yahay dhibaatooyin ka jira abaare ka jiraan meel qarash looga keeno anigu maqaan 68 wasiir qarashkii ay ku shaqo tagi lahaayeen miisaaniyadoodii mushaarkoodii annagu ma awoodno isbeddelkii lagugu codeeyana kaas ma ahayn oo lagaa filayay arrintaas inaad wax ka beddeshaan kaa rabnaa ukaad gudoomiye dalka iyo danta iyo dadkaan ka shaqaynaynaa hadduu qarax dhaco $100,000 aan siinaynaa qofkii soo sheega dibaddana waa u diraynaa waryaa ilaahay yaqaan maanaan ku weydiiye waxaas 68 wasiir tirabadnidoodaan ku weydiiyey faanka dib noogu dhigay 68 wasiir tirabadnidooda waxaa ka yeelaysa isha maanta horta warkeyga kuuma socdee la tashan soo sameynayaa muddo aan badnayna waa kugu soo celinayaa gudoomiye waa mahadsantahay ya badana 4 lay doortay
ماشي أنا فاهم بعد بريالي walaad baa quraan saaray oo furfurmay dadku hadda runtii ogaadeen runta la ogaaday igu sawirtii hadda la ogaaday markeedii igu sawirtii looma baahna hadda way furfurantay warkeedii hay way si gudagali doona aad baan salaamaya iga raali noqda waxa xun cilad farsamo jira tushish bay ku furan Soomaalidu marka runta loo sheego runta loo dhiibo way ka oydaa oo runta ay nacabta runta hadaan maanta u dhiibto way ka calaacalaysaa dhab weeye taas xaqiiqo weeye marka xanuunka in dareemaan raba inaad dareentaan baa raba wuxuu xanuunku yahay waxaad ka gubanaysaan maanta wuxuu yahay baan doonayaa inaad dareentaan runtana yacni ka gubanaysaan waa xaqiiqo run weeye runtana diidimaysaan runtana diidimaysaan marka cid af laga deenayo waad isku raacdaan oo waad waxaan ku weyd ku farxaan laakiin runtii xaqiiqadan way ka naxdaan rubadaydi gooda halkaas ay gooda xumaan iyo waxa jeceshihiin in yacni meel lagu caytamayo ama meel qof lagu afagaadeenay jeceshihiin diinta iyo quraanka iyo xadiiska ma dhageysanaysaan tin badan ku jira kulligiin waa sixirtii Soomaali isaad u dhantiin waxba ay dahay quraan saar baa baahantii bal ilaahay baa ku dhaashay wadaadka wuxuu maalin walba u soo gala xadiis iyo wacdi iyo tafsiirka quraanka cid dhageysata male cid ku soo yaacda male cid daawata male cid sheergaleysa male ugu yaraan 40 minutes buu ku jiraa 40 minutes iyo in ka badan buu ku jiraa afar iyo toban qof baa daawanaya 14 qof ayaa daawanaya diinta waad ka cararaysaa xumihii baa raadsanaysaa xumuhu way dhibtaa xumuhu uu dhiba aflaga meel qabiil laga sheekeynayo meel laga caytamayo meel laga afgaadeynayo saas ay taagantii marka runta hadiidina ana xaqirina waxaana qaladka aanu saarayna madaxweynaha qaldan waayo anu qalad ku taageerinayno qalad ugu taageerimayo wixii qofkii qaldama qalad ugu taageerimayo in cawaale oo rag waxaan ku u soo dhinteen calan yahuudeed maanta ag yaalo calan yahuudeed la keenay maanta cawaale in cadow yahuudeed la keeno waa wax muxuu ahaa yaa keenay madaxweynaha ka dambeeya isagaana ka dambeeya oo la kulmay muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha yahuuda Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu si kooban ula hadlay dhawaan markii ay isku arkeen Nairobi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu Netanyahu si degan u salaamay madaxweyne Farmaajo isna waa uu ka qaaday salaan kadibna uu Farmaajo kaga mahadceliyay sharafta iyo qiimaha Israa'iil u leedahay wadamada Afrika ku yaala dhammaan madaxdii caleemasaarka Kenyatta ku sugnayd ayaa u sara joogsaday oo maqaam sare gaarsiiyay Netanyahu markii uu garoonka Kasarani tagay magaalada Nairobi oo xaflad ay ka dhaceysay Farmaajo iyo Netanyahu ayaa waxa xog badweyn dadkum ay heshay ay isku afgaran waayeen safaarad ay ka furtaan Israa'iil magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sheegayna intaasi aysan hadda sahlan noqon karin waxa Netanyahu sirdoon uu soo dirsaday ay ka howlgalaan magaalada Xamar ee caasimadda Soomaaliya iyagoo dhex degan xerada Xalane oo ciidanka AMISOM ay ilaaliyaan amnigeeda jawaasiis badanna ay joogaan oo reer galbeeda kuwaas oo xogta u gudbiyay dalalkooda haddana ay rabaan in safaar cawaale waxa maanta calan yahuudeed baa yaala rag baa u heesay rag baa u gabiyay calan dawlad islaam ah oo u ayaali kara calan dawlad islaameed iyo calan yahuudeed ma jirto dawlad carab ah oo calanka waxaan ku labadaba isaga dhigi karaa ma jirto heshiis la geli karaa ma jiro waxaan ku adduunka caalamul islaam baa soo xirxiray war yahuudu waxay rabtaa in ay burburiso islaamkii burburinaysa war islaamkii bay waxaan ku waa tan laga qaaday Gaza Qudus waa tan laga dhigay caasimad hay adiguna safaarad baa u damacsantay inaad ka dhisato oo aad ag dhigato calankaaga ag dhigato oo igu sawir aad meesha keento inaad igu sawir meesha keento ayaa damacday aad baan salaamaya dhamaantiin baxunta diidaa runta ka xuntii laakiin aniga
muxuu runta diidaya ra'iisul wasaaraha waan ku taageersanahay yani inuu diido amarka madaxweynaha inuu diido uu kasoo horjeesto waanu ku taageersanahay uuna ku saxsan yahay waayo calanku difaacaya calankiisa yuhuudka ag yaalla ayuu ka difaacaya ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka difaacaya calankiisa oo yuhuuda ag yaalla ayuu ka difaacaya taasina waa xaqiiq weeye dhab weeye reality وأنا سلام يا دلانتي وقوم يفرنين رئيس الوزراء يوم الحوينة إسخلافة لكن لما من باب الدوانتي يعني ضدك هون وحنا كلا صار دونا تصدق أنا كصار دونا يا عدالة هذه عدالة إيجابية وصومالي عدالة أي إيجابية يجا كلا صار دونا يجا أي كلا صار دونا عدالة كلا صار دونا حاجة كلا صار دونا من على يهودات بوكو أدرسنا يا منا وكدفاع عنه يوي منه وكدفاع عنه اسمه دعمان هبطه واسمه دعمان كل شيء لكن خلاف كمرك الله يقول الغرفيو مرك الله غرفيو وحلي اللبدي كل شيء بعد كل شيء حتى يكون علوبة كاسنا نبويا حقيقي وي يجا علوبة ما أنت يجا يستوستي يقول سوى تبا يستوستي بومبومين تبا يستوستي مين دي تبا يستوستي لما وحى هرتا سواء أفكار هذا برنامج في مالجرين كميديا المالجرين في دولة قيبت البيتوس يدك يعني مالها أنت سواء حدان سود يتي سواء حدان هوست أنا كوت الدرجات كوت عاركرون كعادة رجل لو وصل يبو أما رجل ضحفة التواس وقصوا قعدنا بعدي هنا حد ماشي يفتح هذا ninka la yiraahdo عبد الناصر زولبوت ninka ku soo gala ninkaas waa ninka u qaabilsan qaybta miidiyaha inuu ka bombooliyo dawladda una qaybiyo dadka qof walba yani muxuu ahaayay taageera ama difaaca dawladda in muxuu ahaa gurigiisa hoosta lagu qaybiyo ka soo qaado budgetka dawladda ku jirta wixii baa soo afjarnay hadda sheekadii baa soo afgooday dhalinyartii midnimo qaran ee ku caanamaashay aflagaadada iyo cayda muxuu ahaayay caada qaatayaasha ahaayay tooska uga soo qaadanayay عبد الناصر زولو wixii baa ka go'ay iyagii baa kala xararo kala tegay wixii way kala baabeen waayo dawaa dhuuni bay ugu jireen waxay ugu afgaadeen dadka dhuuni buu ahaa igaraali noqda codkii baa iga waashay Soomaalidu waxay diidaa runtay diidaa laakiin anagu runta idinku gabar maayo toos baan idinku ridaya sheekadii igu sawirna way soo dhamaatay way soo gabagabowday igu sawir sheekadii okay taa halkaas ayaan kaga baxaynaa waxaana kala saari doonaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uguma aha dadkii ugu horreeyay ee iskhilaafa kuwa naqaana caadi u leenahay dhaqan bay u leenahay inaynu yani la iskhilaafo iyagu iskhilaafaan dhexdoodu oo mid ka baxo meesha oo motion la damxo laga saaro mid meesha laga eriyo marka taasna iyaga ayaa ama isfahmi doona ama muxuu ahaayay waxa kala saari doona baarlamaanka kala saari doona oo lacagtiiba inta saa loo dhigo miiska ay geligooba mid qada ka saari doonaan okay aan soo noqona cashuurta magaalada Muqdisho dawladdu horta waxay ku kooban tahay waa magaalada Muqdisho kaliya magaalada Muqdisho ay ka adag tahay magaalada Muqdisho bay xoogta ku haysataa meel kale ka arrimin karta ma jirto yani wadanka yani kuma soo rogi karto yani amar ama kuma soo rogi karto yani in ay yani wax ka fuliso tab waa magaalada Muqdisho iyo barasaabka magaalada duqa magaalada cashuurtu waxay khaas u tahay magaalada Muqdisho kaliya iyo dadka ganacsiga dadka cashuurtu miyaan ahayn wadaniyan oo yani wadanka ka kooban ilaa ka gobol ilaa ka gobol lagu soo rogay amarka in ay bixiyaan cashuur bixiyaan maya maaha waayo maamul baxaysa gobolka waa magaalo waa gal kale weeyaan waa ka dastuur kale weeyaan oo dastuur kale lagu maamulaya gobolka okay dawladnimadu maxay tahay marka haddii aan mar muxuu ahaayay dalka looga amrinayna looga arriminayo waa lagu qaldan yahay
waa lagu qaldan yahay ganacsatada magaalada muqdisho in ay iyagu keliya ka bixiyaan cashuur lagu dhiso dekeda boosaaso inta la ururiyo cashuurta dekeda boosaaso ayaa lagu dhisayaa dekeda cusub waayo waxaa dekedii hore waxaa soo xidhatay DB walba soo xidhatay DB walba ay u xidhan tahay marka dekeda cusub baa loogu dhisayaa magaalada boosaaso cashuurta laga ururiyo ganacsatada muqdisho dadka khaasatan deegaan ahaan taasina waa mid qalad weeye awaamiirta dawladdu waa in ay ku soo rogtaa haddii ay daacad ka tahay in ay dadka ama dalka muxuu ahaaye cashuur ay kusoo rogayso ama dhaqaale lagu abuurayo waa in dalka oo dhan lagu yani amarka lagu soo riyaa ma aha magaalo keliya ka ama caasimad ama yani dadka deegaan ahaan u leh mid khaas ah waryaan dekada leedka dhisane indhaha furta yaan dekada leedka dhisane oo idinku muxuu ahaaye u taliya gobolkiina gobol walba dhankiisa isaga isku maamula gobol walba dhankiisa isaga isku maamula gobolkaaga adigu maamula u tali aad baa islaamiga kulligiinba meel walba joogtaan daafaha dunida caalamka iga raali noqdana khadka ayaa xun ama muxuu ahaaye